48 saaci la soo dhaafay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya oo kaashanaysa diyaaradaha saaxiibada caalamiga ah ayaa la xaqiijiyay inay ku guuleysatay fulinta duqeymo lala beegsaday xarumo ay al-shabaab ku lahayd agagaarka deegaanka masaajid Cali-Gaduud. madax ka tirsan kooxda gaadiid saanad waday iyo dagaalamayaal badan ayaa la baahiyey inay halkaasi ku dhammaadeen. weeraradan ayaa la sheegay inay ka dhaceen meel u dhow masaajid Cali-Gaduud iyo deegaanka Burculow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. dhowr howlgal oo duqeymo ah oo ay niisa iyo saaxiibada caalamiga wada fuliyeen ayaa dhacay 48 saaci la soo dhaafay siday maanta faafisay dowladda federaalka ee Soomaaliya. weerarka koowaad oo la fuliyey 22kii bishan ayaa ka dhacay garaash ay ku shiraysa kooxdu. 21 dhimasho ayaa halkan laga wariyey. mid ka mid ah madaxda kooxda ee weerarkan lagu dilay waxay dowladdu ku sheegtay magaciisa Cabdullaahi Cali Caraale. howlgalka labaad oo nawaaxiga Cali-Gaduud laga fuliyey wuxuu dhacay shalay casirkii waxaana laga soo wariyey geerida 11 al-shabaab ah iyo dhaawac 30 ka badan. balse xalay al-shabaab waxaa la sheegay inay u ahayd habeen adag. 4 duqeyn oo xalay la fuliyey ayaa dhaliyey khasaarihii ugu badnaa ee kooxda soo gaara waayahan. duqeymahan ayaa laga fuliyey deegaanka Burculow oo 10 kiiloomitir dhanka galbeed ka xiga deegaanka masaajid Cali-Gaduud. sida la xaqiijiyey 4 weerar ayaa dhacay intii u dhaxaysay 9kii ilaa 12kii habeenimo ee xalay. mid ka mid ah weerarada xalay dhacay waxaa lala beegsaday gaari BG ah oo ciidan iyo saanad siday. maleeshiya uu hogaaminayay nin la yiraahdo Muscab Cabdulla Sanay iyo kooxdiisa ayaa ka mid ah dhinacyada ay duqeymaha xalay haleeleen. koox firxad ah oo ka laabatay masaajid Cali-Gaduud ayaa sidoo kale xalay la duqeeyey. dhammaan weeraradan midka ugu khasaaraha yar dowladdu waxay ka tabisay 9 dhimasho ah. warbixin ku saabsanayd duqeymihii xalay dhacay oo ay dowladdu siidaysa maanta waxaa lagu sheegay in al-shabaab ay 33 meyd saaka geeyeen deegaanka la yiraahdo Al-Kowthar oo u dhow magaalada Aadan Yabaal. waxaa jira warar sheegaya in shabaabku kala shakiyeen kadib markii dhammaan ay bartilmaameedyada haleeleen diyaaradihii fuliya weerarada. fariinta dagaal ee maanta waxay dowladda Soomaaliya ku sheegtay in hay'adda NISA iyo saaxiibada caalamiga ah inay iska kaashadeen duqeymaha dhacay 48 saaci la soo dhaafay. maxay kula taadiga